wafdi ka kooban mas'uuliyiin kala duwan oo reer Djibouti ayaa ku sugan Somaliland iyagoo halkaasi kaga qayb qaadanaya xafladaha kala duwan ee lagu xusayo 20 guurada ka soo wareegtay waqtigii ay ku dhawaaqdeen Somaliland inay gooni uga gooday amba ay gooni uga joogsatay Soomaaliya inteeda kale oo ku beegan 18 May wariyaasheeda kala duwan ee ku sugan hadaba halkaasi ayaa nooga soo diray warbixintan أحمد أنا مدن كترسان برلمان كجيبوتي أي كسر دقي ما تقولي كده بجرام كديارها عقال إيربورت إنترناشونال يكون يلا مجالات هرجيسة وعلى سيد النقص والدوية حبنا كم ده حكومة الصوماليلاند أو هرك عيو وزير كأرمها الدبد يسكاش كعالمي محمد عبد الله عمر وزير كعيارها محمد إبراهيم مدر إيو وزير كوحبرشدة مروز زمزم عبدي آدن وفدي كسر جمهورية جيبوتي وكقريب قال يمالين تبري مناسبات السديد طبعا كمية وحكمدا أقسمها جودة بنك قال جيبوتي جامع محمود حيد تليها عيدا كلا الجمهورية دلك جيبوتي كولونيل محمد جامع الدعالي iyo waliba mas'uuliyiin kale oo ka tirsan dalka jamhuuriyadda Djibouti imaadka waftigan waxa jawaab u yihiin martiqaad Soomaaliland oo fidisay jamhuuriyadda Djibouti oo ka jawaabay madaxweyne Ismaaciil Umar Geele soo qayb qaataan munaasabada 18 May oo berri si weyn uga dhacaysa caasimadda Hargeysa magaalada Hargeysa tan iyo intaanu joogno labada maalmood waxaan ka arkaynaa diyaar galow balaaran oo lagu jiro 18 May iyada oo jawiga cimiladuna ay aad u wanaagsan tahay roobna ay durbadiiba ka bilaameen magaalada Hargeysa waxa kale oo xusid mudan in horumar balaaran uu ka hana qaaday magaalada Hargeysa sida uu sheegay duqa magaalada Hargeysa waxa ku soo biiray dhismayaal fara badan waxaana taasiba aan ka arkay markii aan ka soo degnay maalintii shalay garoonka diyaaradaha ee Cigaal Airport International ee ku yaala magaalada Hargeysa oo si wanaagsan lagu soo dhaweeyay Xuseen Cumar RTD Hargeysa